kulanti wanaagsan magacaygu waa maxamed cabdi janalkana xogaha dunida waxaynu maanta ku eegaynaa 10 magaalo ee adduunka ugu khatarta badan in lagu noolaado sanadkan 2017 waxa magaalooyinkaasi aan u soo qaadan doonaa sida ay u kala daran yihiin lambarka koowaad Kabul waa caasimadda dalka Afghanistan waana magaalada ugu ballaaran bariga dalkaasi magaaladani ayaa beri ka mid ahayd magaalooyinka ugu nabdoon dunida oo soo jiidan jiray dalxiisayaasha laakiin waxaa nabadaasi colaadda ay u bedelantay markii ruushku uu dalkaasi ku duulay waxayna noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu halista badan adduunka oo dagaallo joogto ah ay aafeeyeen Taliban ayaa lagu eedeeyaa inay abuureen dhibaatooyin fara badan Mareykanka ayaa sanadkii 2003 ku duulay dalkaasi kadib markii ay hoy u noqotay Al-Qaeda oo lagu eedeeyay weeraradii argaxiso ee 11 September sanadkii 2001 ka dhacay Mareykanka Kabul waxay noqotay magaalo ay ka dhacaan dilal qorsheysan afduubyo musuqmaasuq lacago sharci darro ah suuq madow iyo ka ganacsiga daroogada iyo dambiyo kale lambarka labaad Acapulco Mexico Acapulco waa magaalada ugu ballaaran dalka Mexico waxayna leedahay xeeb aad u qurxoon oo soo jiidanaysa indhaha dad badan laakiin magaaladani waxaa lagu sheegay inay ka mid noqotay magaalooyinka ugu khatarta ee xasradaha badan adduunka waxayna ka mid tahay xarumaha ugu waaweyn ee laga ganacsado daroogada culus waxaana magaaladani cayn ku tahay afduubka iyadoo ay ka dhacaan kiisas dilal ah oo mararka qaar la beegsado dalxiisayaasha taasina waa midda keentay in magaaladani ay gasho liiska magaalooyinka ugu halista badan adduunka lambarka saddexaad Rio de Janeiro waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Brazil waana magaalada lixaad ee ugu ballaaran Amerika waa magaalo qurxoon oo ay jecel yihiin dalxiisayaasha laakiin waxaa sanadkani loo aqoonsaday inay ka mid noqotay magaalooyinka ugu khatarta badan adduunka oo ay ka dhacaan dilalka dhaca ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada iyadoo gaangiska hubaysan ay weeraraan dhismayaasha dowladda waxaa kaloo khatar ku haya magaaladani musuqmaasuq qayb ka noqday siyaasadda waddankaasi lambarka afraad waa San Pedro Sula waa magaalo ku taala cirifka waqooyi galbeed ee waddanka Honduras oo ay caasimad u tahay magaalada Sula Valley waxayna caan ku tahay dhismayaal qurxoon laakiin dambiyo badan oo ka dhacay magaaladaasi ayaa waddankani ka dhigay inuu galo liiska dalalka ugu khatarta badan adduunka waxaana magaaladani loogu yeeraa magaaladii dilka ee dunida sababtoo ah heerka dilalka halkaasi ka dhaca ayaa aad u sareeya marka loola barbardhigo magaalooyin kale ee caalamka heerka dambiyada ayaa kordhay magaalada Sula Valley 3 sano ee la soo dhaafay iyadoo musuqa boobka dhaca guryaha iyo xatooyada ka ganacsiga daroogada ay kordheen boolis aan tababarnayn oo ay ku yar tahay qalabka ay ku howlgalayaan ayaa maamulaya magaaladaasi taasina waxay keentay in magaaladani ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu halista badan xagga ammaanka dunida lambarka shanaad Ciudad Juarez waa magaalo kale oo ammaankeedu uu halis ku jiro oo ku taala dalka Mexico waa dalka kaliya oo ay ku yaadhaan laba magaalo oo ka mid noqday meelaha ugu khatarta badan dunida 20 sano ee la soo dhaafay waxaa magaaladani kordhayay heerka dambiyada iyadoo ka ganacsiga daroogada uu sare u kacay sida magaalada Acapulco dad badan
oo u badan haween ayaa lagu afduubtaa oo lagu kufsadaa magaaladani waxayna arrintani ay ka dhigaysaa magaaladani mid halis badan ku ah nolosha bini'aadamka dowladda iyo booliska ayaa isku dayaya inay hoos u dhigaan heerka dembiyada dhacaya inkastoo howlgalladaasi ay dhiirigeliyeen dhaqdhaqaaqa iyo nolosha magaalada ayaa haddana waxaa dhaca dilal ka dhasha ganacsiga daroogada iyo lacago sharci darro ah oo la kala wareegsado lambarka 6 Guatemala City Guatemala oo sidoo kale loo yaqaano Guata waxay ku taalaa bartamaha koonfureed ee dalka Guatemala waxaana dadweynaha ku nool magaaladaasi ay cabsi badani ka soo wajahdaa dhinaca ammaanka caasimadda Guatemala waxaa sanad walba lagu kala iibsadaa cadad badan oo darooga ah marka loo eego wadamada kale si la mid ah magaalooyin badan waxaa magaaladani dhibaato ku haya dalalka afduubka iyo khilaafka xagga siyaasadda ah boolisku door weyn kama qaataan la dagaalanka dembiyada mujtamaca waxaa kaloo ammaan darada ugu darsoontay caafimaad xumo sida neef iyo qufac lambarka 7 Karachi waa magaalada ugu ballaaran dalka Pakistan waana caasimadda gobolka Sindh oo ay ku nool yihiin 23 milyan oo qof waxaana magaaladani loogu yeeraa magaaladii nalalka ama leerarka Karachi waxay sidoo kale ku jirtaa liiska magaalooyinka ugu khatarta badan dunida maadaama ay ka dhacaan dilal qorsheysan musuqmaasuq madax furasho afduubyo la sameeyay iyo dambiyo kale oo xadgudub ku ah bini'aadamka dambiyada ka dhaca wadooyinka ayaa sidoo kale ku badan Karachi waxaana dambiyadaasi ku lug leh caruur inkastoo booliska Pakistan ay xakameeyeen dambiyada sanadihii hore haddana weli dowladdu waxay sheegtaa in Karachi ay tahay meel ammaankeedu uu khatar ku jiro lambarka 8 Caracas waa magaalo aad muhiim ugu ah dalka Venezuela laakiin waxaa haddana magaaladani lagu tilmaamaa meelaha ugu khatarta badan adduunka mas'uuliyiinta dowladda ayaa lagu eedeeyaa musuq ma jira boolis la tacaala dambiyada dhaca iyadoo sharciga magaaladani uu aad u liito sababo la xiriira kuwa geysta dambiyada oo aan la marin ciqaabtii ay muteen Caracas waxay dhaqan u leedahay musuq dhac dilal afduub xatooyo iyo sharciga oo aan shaqayn kan ganacsiga daroogada ayaa sidoo kale khatar ku haya nolosha magaaladani waxaa daroogada loo dhoofiyaa magaalooyin kale oo ku yaala Latin America Mareykanka iyo Yurub iyadoo gacan laga helayo mas'uuliyiinta dowladda heerka dilalka ayaa maalin walba kordha maadaama aysan jirin boolis xakameeya waxayna taasi khatar ay ku tahay dalxiisayaasha imaanaya dalkaasi lambarka 9 Baghdad waa caasimadda dalka Ciraaq waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn galbeedka Aasiya iyadoo ay ku nool yihiin mujtamac ka badan 8 milyan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan xagga wararka nolosha dadka ku nool magaalada Baghdad aad ayay u liidataa taasina waxay keentay inay korto tirada afduubka maalin walba ka dhacaya magaaladaasi waxay mujtamaca Baghdad ay la kulmaan dhibaatooyin xagga nolosha ah iyadoo dambiyada ay wax caadi ah ay ka yihiin magaaladaasi Baghdad waxaa ku badan dalalka qaraxyada la soo abaabulay shirqoolo la soo maleegay dad badan ayaa u guuray magaalooyin kale oo ku yaala Ciraaq sababo la xiriira xaaladda ammaankooda iyadoo magaalada ay ka mid noqotay magaalooyinka ugu halista badan adduunka ee dalxiisayaasha looga digo in ay u safraan ugu dambeyntiina lambarka 10 waxaa galay Cape Town waa magaalo qurxoon oo aad loogu soo dalxiis tago kuna taala dalka South Africa waxayna caan ku tahay deked
meelo lagu kulmo iyo buuro qurxoon. inkastoo Cape Town ay sidaa tahay haddana waxay ka mid noqotay meelaha ugu khatarsan adduunka xagga ammaanka sababo la xiriira dhaca ka jira halkaasi, boobka, dilalka, rabshadaha waddooyinka iyo goobaha tareenada, ka ganacsiga daroogada iyo qowlaystayaal dadka baada ayaa ku badan magaalada Cape Town, iyadoo booliskuna ay yar tahay in ay wax ka qabtaan dambiyada dhacaya. ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay 10 magaalo ee adduunka ugu khatarsan xagga ammaanka. fadlan subscribe garee channelkan si aad u hesho barnaamijyada kale ee cusub ee aan soo wadno. waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.